kalfadhigii 14aad ee golaha deegaanka degmada Balugubadle ayaa maanta ka furmay xarunta dawladda hoose ee magaaladaas. Gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Balugubadle Cabdi Iimaan Jaamac waxa uu furitaankii kalfadhiga 14aad uu ka warbixiyay ajandaha kalfadhigan cusub iyo qorshayaasha ay ahmiyadda siinayaan. waxaanu fadhinaa xarunta dawladda hoose ee degmada Balugubadle waxaanu qabanaynaa oo xildhibaanada waxa jooga 10 xildhibaan baa jooga saddexna way maqan waxaanu qabanaynaa maanta kalfadhigii 14aad ee golaha deegaanka degmada Balugubadle taasoo aan kaga hadli doono arrimaha dadka noo yimaadeen haday horumarta iyo dhinaca kale tahayba wixii ajandaana waxa uu xil saaran oo akhri doona xogayaha dawladda hoose dawladda hoose degmada Balugubadle oo furitaankii kalfadhiga 14aad ka hadlay waxa uu sheegay inuu 2 jeer oo hore ay kordhiyeen miisaaniyadda degmada Balugubadle waxaanu sidoo kale ka hadlay ajandaha horyaala iyo qodobo kale. waxaan idinku soo gudbiyay kalfadhigan 14aad ajandihiisa oo aynu maanta kaga doodi doono 3 qodob oo kaliya qaabkii loo wajihi lahaa deyntii taagnayd ee gaadiidka jidadka ee dawladda hoose iibsanaysay sidii carratuul loo dhigi lahaa wadnaha magaalada Balugubadle in la helo map sectionkii degmada Balugubadle oo dan guud oo aynu hawlaha guud ku wareejinay naga maqantay waxa maanta aniga sharafa oo golaha deegaanka degmada Balugubadle oo sharafa in 2018 degmada Balugubadle ee aynu ansixinay ee daraskeeduna ahaa 752 milyan in aynu August dib u codsanay miisaaniyad kordhin taasoo ilaahay wax loogu mahadnaqo ay tahay oo daraska miisaaniyaddan aynu kordhinay ee aynu codsanay wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirka ka codsanay ee laga aqbalay oo daraskeeda miisaaniyadeed wuxuu dhan yahay 775 milyan isugeyn miisaaniyaddan kordhinay miisaaniyaddii hore aynu ansixinay oo isugeyn dhan 1 billion 527 milyan 448,000 Cabdiraxmaan Samriye TV-ga caalamiga Hon Cable xarunta gobolka Balugubadle.